Hello, السلام عليكم. إن شاء الله waxaynu kusoo dareynaa project-geena qofkii formska hawshiisii dhameeyey inuu report kusoo darsado. Insha Allah reportka waxaad kaga soo darsanaysaan qofkii aan nala socon markii hore extension manage extension halkan loading buu samayn doonaa halkan ayaana ka xulan doontaa adigoo scroll down odhanaya report halkan ayaad ka xulanaysaa Microsoft RDLC report designer halkan adiga sidan kuma aha download ba kugu qoran download ba oranaysaa waan iska sugaysaa inta kusoo dhamaanayo insha Allah markay kusoo dhamaato close ayuu halka kusoo dhigi doonaa close ba oran doontaa dhammaan programkaaga waad xidhi doontaa adigoo kusoo laabanaya mar kale marka aad inta kusoo darto waxaad sidoo kale tijaabinaysaa projectkaaga magaciisa adigoo odhanaya right click in ay kusoo gashay new itemska in report ay halkan kusoo gashay aad ka tijaabin doontaa marka report wizard ayaa halkan inoo soo gashay saad ujeedaan tan ayaan hadda xulan doonaa sidoo kale waxaa jirta inaad tools ka tagto adigoo kusoo daraya extension cusub oo tegaya NuGet package manager console marka ku dhufanaysaa daaqadan kusoo bixi doontaa ayaad waxaad dhigi doontaa linkigaasaan kuu dhigi doona videogan descriptionkiisa haddii ilaahay ka dhigo linkigan ayaana ku paste garin doontaa halkan waa linki hore iska kooban install package Microsoft Report Service Report View Encourage Control Window Forms intaas weeye marka insha Allah waan kusoo dhigi doonaa kan ayaad taaban doontaa ayaad xulan doontaa waxaana sugi doontaa inta installation ku socdo markay kusoo dhamaato waa in form kuu furan yahay markaad form soo furato for example haddaan hadda soo furto advancedgaas oo kale oo formkan kuu furan yahay toolboxkaaga tegaysaa halkan ayaan report ku qoraysaa marka report viewerkan ayaad ku drag drop garin doontaa insha Allah formka cusub ee aad soo xulato marka haddana waxaynu bilaabaynaa habkii aynu ugu soo dirsanayno insha Allah taala form report ah inagoo practical ku sameynayno project-kayga marka waxaynu tegaynaa insha Allah taala si aynu ugu soo darsano project-geena report cusub project-kaaga magaciisa ayaad right click leedahay waxaanad leedahay add new item scroll down ayaad samayn doontaa waxaana oran doontaa report wizard halkan ayaa waxa ku soo baxay report wizard waxaad leedahay add kabacdi daaqadan ayaa ku soo bixi doonta adigoo halkan ka sii xulan doona reportka data source-ga meesha laga soo qaadayo marka waxaad leedahay new database baa ku soo baxay waxaad leedahay next dataset baa ku soo baxay waxaad leedahay next insha Allah waxaan rajeynayaa inaan degdegaynin new connection baad markaa ka xulanaysaa halkan ayaan database-ka kaga soo darsaa adoo taabanaya buttonkan browse kabacdi database-ka ay toos ku dulgeynaya hadda database-ka halkan uu ku diyaarsan yahay waxaana la dhahaa kalkal hospital management system marka anyway wax kastuu yahay waxaad taabanaysaa database-kaaga waxaanad oranaysaa open halkan markuu soo galo waxaad leedahay test connection marka saa ujeedo in connection-keena waa succeed waxaan leenahay okay kabacdi waxaan leenahay next wuxuu ku leeyahay connection-kaaga miyaad local database ka isticmaalaysaa yes ayaan leenahay or already we exist project would you like to override it marka yes ayaad leedahay because of aniga mar hore ayuuba ku sii jiray project-kan marka uu soo qabanayaa tableskii oo dhan saad ujeedo add staff login iyo patient marka mid ka mid ayaan xulanaynaa hadda testiga ugu qaadano add staff adiga tablada halkan ay kusoo gelayaan marka halkan hadda waxaan xulan doonaa add staff waa tabladii database-kayga igu jiray waxayna leenahay finish okay halkan ayaa waxaa inoo soo galay add staff ID staff name gender telephone mail dhammaan halkan ayay inoo soo galeen waxay leenahay next available fields-ka ayaa waxaad ku bixin doontaa insha Allah taala value-ga haddii aad xabad u qaato oo aad drag drop ku samayso iyo haddii aad intaad hard wada saarto aad dhammaantood soo jiido markaan halkan ku sii dayso labada qaab waad samayn kartaa kabacdi waxaan leenahay next qaabkay usoo bixi doonta reportkaaga ayaa halkan kugu tusayaa saad ujeedaanba waa kan staff ID staff name age saas kugu soo bixi doona waxaad leedahay next haddaad doonayso dhisankeena wax ka bedeshaado waa ka bedeli kartaa waxaad leedahay next waxaad leedahay finish marka qaabkan ayay usoo baxday hadda reportkeena saad ujeedo saan oo kale iska soo dheh qaabkan ayay usoo baxday marka waxaan samayn doonaa inaan kusoo darsano formkii reportkan uu kasoo bixi lahaa marka waxaynu leenahay right click add ayaan leenahay halkan ayaan leenahay new item
marka waxaan leenahay form cusub kusoo dar waa formkii reportkan marka uu kasoo muuqanayay form windows ayaan taabananaa magaciisana waxaynu ula baxaynaa add staff report weli format si loo garto report add staff baan leenahay waxaan leenahay add aan kusoo dar uga jeedno halkan ayuu kaaga soo baxaya markii halkan maranayo waxaan u baahanaa kii toolboxka in haddeer kusoo darnay codekii installationka aynu kaga soo darnay marka halkan waxaan ku qoranaa report viewerkan waxaynu ku drag drop garin doonaa formkeena inagoo halkan soo dhigana halkan ayaan waxaan ka xulan doonaa databaseka uu kasoo qaadan doono reportka marka report 2 baynu dooranaa maadaama markii hore aan mid sameeyey report 2 adiga report 1 baa laga yaabaa in halkaas ku tahay iyo databasekaga magaciisii waa kana waynu xulanay waxa kaliya sameynaa waxay tahay inaynu formkeena ran garayno inagoo markaa test ka qaadayna inaynu inoo soo galay qaybtiin rabnay marka MDI-ga ayaan kasoo eegi doonaa insha allah haddii had si formka kusoo xidhana sidoo kale waan kaga soo dari karaa marka report add staff baan halkan kusoo dari doonaa report add staff okay markan qaabkan aan u dhigno waxaan leenahay double click halkan waxaan leenahay waxaad noo soo kicisaa bahal la yidhaahdo report oo add staff wadata insha allah tacaala dot showgan marka raacin doonaa si uu inoogu soo bandhigo haddii aad formka si toosa project uga soo xidhan waad heli kartaa oo aad tiraahdo kakaan manage system property ga soo xidh hadda qaabkan ayaan tijaabin doonaa inaynu projectkeenu dhan soo kicino isla markaana aynu marno loginkiisa si aynu u ogaano waxaynu sameynay inay sax yihiin okay projectkeenu hadda inoo soo kacaya halkan waxaan ka dhigaynaa admin halkan waxaan ka dhigaynaa awil halkan waxaynu ka dhigaynaa 1 2 3 marka login ayaan leenahay success ay leeyahay insha allah qaabkan markii lagu soo baxay report ayaan taaban doonaa wada jeedaan hadda hal field baa ku jira data badan ku jirta marka ID-gi waa kan ahaanad female waxaas ayaa iskaga qorqoran hadda waad ujeedaan waa qof fara falaaday marka insha allah tacaala waxaan rajeynayaa aad qaabkan mari doonto wixii ciladan insha allah macluumaadda inoo joogta aad baad u mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu